siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ayaa su'aalo ka keenay sida sahlan ee loo weeraray xarumaha ay ka mid yihiin madaxtooyada iyo saldhigyada ciidamada ee ku yaala magaalada Muqdisho xilli golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay digniin ka soo saareen baabuurta qaraxyada sida faafahinta warkan magaalada Muqdisho inaga soo dirtay wariyahayaga Hiba Maxamed Nuur. bixinta laga dhageystay wasiirka amniga waxa ka mid ahayd xaaladaha amniga ee dalku ku sugan yahay guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho. wasiirka amnigu wuxuu sheegay in maaragtay ay xaaladuhu aad u fiican yihiin laakiinse ay jirto uu jiro baabuur nooha ah oo loo soo ekeysiyay shirkadda Sahal ee airportka ka shaqeysa oo magaalada ku jira marka lana rabo in laga digtoonaado wixii cidii warbixin maaragtay aragtaana ay maaragtay hay'adaha amniga la soo xiriirto. labada qarax ayaa dhacay shirka toddobaadlaha ah ee ka dhaca Khamiista lagu shaaciyay labada baabuur ee qaraxa waday balse waxa arintaasi su'aalo badan iska weydiiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Cabdullaahi Maxamed Idris Leesto oo ah la taliyaha dhanka ammaanka iyo arrimaha bulshada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku tilmaamaya aniga nasiib daraan u arkaya arintaas marba hadii shir golihii wasiirada Khamiistii oo shirkii caadiga ah oo lagu sheegay in qarax soo socdo cidii wax sheegtay ayada laga rabay horta inaan wax ay badbaadiso hadii la ogaa in baabuur soo galayaan magaalada soo galayaan waxaan aad u fiicnaan lahayd ninkaas wuu ogaaday wasiirkii waaye nin yar ma aha wasiirkii amniga qaranka waaye marba haduu sheegay golihii wasiiradu sheegay oo shacabkeena la maqashiyay oo waxina ay dhaceen oo dadna ku dhamaadeen oo ciidamada lagu laayay oo waliba magaalada meeshii ugu darneed madaxtooyadii horteeda la isku laayay waxyaabahaas waxaan u arkayaa in wax fiican aan ahayn. Dr. Maxamed Xasan Cali Statesman ayaa u arkay in digniinta la soo saaray aan la soconin taxadar iyo feejignaan adag. wallaahi aniga waxay ila tahay waxa dhacay oo aan xalay aragnay waa fashil ikhlaaqi wax la yiraahdo dhaqankii iyo dabeecadii baa lagu fashilmayba golaha wasiiradu hadii ogaayeen wasiirku amnigu ogaa in ay jiraan baabuuro iyo gaadiid qarxinayo oo waxyeelo shacabka u geenayo iyagu shaqadooda waxay ahayd in follow up ku sameeyaan oo ay baaraan oo ay daba galaan oo ay markaan xalay aragnay waxaas oo haddana barnaamij hore loo sii sheegay uu yahay